بسم الله الرحمن الرحيم. marka waan iska bilaabaneynaa marka waxaan sameyneynaa marka sidii haday aan wax u fasireyno oo kale waxaan sameyneynaa markaas qabiilka iyo daraasaadkiisa iyo heerarka uu soo marayaan marka hore ka hadlaynaa aragtiyada iyo fakarka marka waxaan sameyneynaa marka dabagal wixii soo kordhay meesha la marayo isrogrogayo marka hadda waxaan bilaabeynaa marka hordhac oo ah inaan eegno heerarkii moogta marka heerka ugu horeeyo waxa weeyaan waa image-ka oo qofka Soomaaliga ama dadka Soomaalida marka lala hadlo intooda badan ay sheegaan moogta intooda badan maxay sheegayaan waxay qabaan in oo maaragtay dadka Soomaalida ay ka yimaadeen nin la dhaho hiil marka hiilkaas wuxuu dhalay sab iyo Soomaali uu dhalay marka dadka oo dhan ma wada fakarka waxa qaba laakiin dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay qabaan formiga oo maaragtay inay dadka Soomaalida oo kalena ay ka kala yimaadeen labadaas qof oo hiil u dhalay taas waxa waaye waa aragti koobaad aragtida labaad dadkii haday aan ka hadlaynay oo sahanka ahaa oo daafurka sameynayay oo qabaa'ilka Soomaalida iyo si u nool yihiin wax ka qorayay waxay soo tabiyeen sheekooyin badan oo u badan maaragtay iyo magacyo duality amoogta marka qof waliba qof qaar baa koonfur tagaayo qaar baa galbeed tagaayo qaar baa NFD tagaayo qaar baa xamar imaanayo marka magacyada dadkaas oo baxthigaas halka ku sameynayay ay soo gudbiyeen waxa kamid ah mesela dadku mar waxay ku leeyihiin qaarkood waxay u qaybsamaan dir iyo daarood mar waxay ku leeyihiin waxay u qaybsamaan qaar dadka kamid ah dadku waa hawiye iyo daarood qaar kamid ah waxay leeyihiin waa hiraab iyo daarood dadka qaarkood waxay leeyihiin waa sab iyo Soomaali dadka qaarkood waxay soo gudbiyeen oo ay u qaybiyeen Soomaalida afar moogta waxay leeyihiin waxa waaye dadku waa hawiye iyo bare hawiye wixii ka horeeyay iyo hawiye dir iyo daarood moogta marka qaabka noocaas oo kale ah iyo dadkii sahamada meesha ku yimaadeen ay u soo gudbiyeen maaragtay qaabka Soomaalidu ay u qaybsan tahay moogta dadkaas wax ka qoray Soomaaliya waxyaabaha ugu yaab badan oo durbadiiba ay soo tabiyeen oo ayagu ay arkeen waxa kamid ah in ay dhici karto dadku qabaa'ilka ay sheeganayaan in aanu noqon karin dhiig moogta ee uu noqon karo isbahaysi kulli waa isbahaysi ma dhahayaan example ay qaadanayaan maxay dadka intay la sheekaystaan hoos baa loola sheekaysan isbahaysi lagu jiraa isbahaysiga lagu jira marka dadkii hoos oo la sii hadasho dhaliyaatihiin wuxuu ku dhahaa anu saasaanay laakiin waxaan u dhashay reerkaas baan u dhashay moogta marka waxay soo tabiyeen inuu shaki jiro dadku inay aabba ka bilowdeen oo ay caruurta hadda joogta ay aabbaha ka imaadeen shaki ay keeneen waa qaybta labaad intii marka dalka la qabsaday dad fara badan oo aqoon-yahan oo iyaga laftigooda maaragtay Berlin kadib iyo qarnigii 19aad horaantiisii dalka tageen qarnigii 20aad horaantiisii dalka tageen waxa kamid ah odayga Louis moogta baa kamid ah waxa weeyaan waxay raadiyeen in ay Soomaalida u qaybiyaan qaab yara cusub oo yara professional ku salaysan markaas waxay soo gudbiyeen in ay dadka Soomaalidu yihiin waran le iyo wadaad marka waran loo maxaa tahay waa dadkan geeleyda oo ayagu istila oo magacyadan caadiga anaga aan naqaano dadkan hadaba istiladay moogta iyo magacyada oo dadka wadaadada ama sharaaf noqo ama sheekhaal noqo ama qabiil isagu transformation uu ku dhacay oo diinta intuu bartay qolada diinta dadka barta ku biiray ha noqdaano marka dadku labada category baa loo qaybiyay laakiin waxaad moodaa si voluntary ah in looga tagay dadkii haday aad weydiinaysay moogta waa laga tagay laakiin markaad akhrido hadda mesela Burton oo kale markaad akhrinayso
waxyaabaha uu aad uga hadlaa wuxuu leeyahay waxaa la yaab leh dadka Soomaalida ah qaabka ay oola dhaqmaan dadka walaalahooda oo ayaga la mid ah oo xirfadleyda oo marka ama birta tuma ama haraga ka shaqeeyo oo ay u quursadaan moogta ani markii aan barnaamijkan aan ku soo biiray iyo cilmi baaristan iyo aan ku soo biiray waxa la taagnaa levelkan oo ah dadku inuu yahay waranle iyo wadaad moogta marka anaga researchkeeni marka aan galay waxa noo soo baxday category weyn moogta oo Soomaaliyeed oo xirfadley ah oo ka maqan marka sectorkan anaga marka waxaan ku darnay anagoo dadka isu geynayno dadka in la dhaho waable moogta waable macnaheedu waxa waaye dadka ninka birta tunta meesha uu birta ku tunta warshada ma lihin waxa la dhahaa hooso ama waxa la dhahaa waab meesha uu kabaha ku tolo waa sidoo kale ama waa hooso ama waa waab marka dadka xirfadleyda ama hala dhaho waa sixiroole waa ibraha hadda yaxraha oo kaleeto waa xirfad cidi garanayso reer banaadir alindida marka la sameeynayo waxa jira geed yar oo qori ah oo dhuuban oo fiidiisa waxa lagu xiraa dunta marna xagga u gudbaysa yaa lagu xiraa yaxar baa la dhahaa moogta marka waa dadka magacaas yaxarka ah waa dadka xirfadda oo maryahaas alindiga ah keeneen waaye moogta marka magacii xirfaday wataan magacyadoodu waa badan yihiin inagu in yar baa naqaanaa laakiin waana la qarinaa oo dadka ku fadhiya moogta ee caburinayo magacyaalkooda in la ogaado ma ay ogolo moogta laakiin dadka xirfadleyda ah waxaan anaga aan dhahnay waa in la isugu geeyo markaas magaca waable marka bulshada Soomaaliyeed ee saldhiga uu yahay reer guuraago waa waranle iyo wadaad iyo waable markaan halka marayno waxa soo baxday dad aan saddexda midna ahayn oo Soomaali ah oo dalka ku nool hadana dadka saddexda ah oo ku nool Soomaaliya oo aan saddexda midna ahayn waxa kamid ah dad baa waxay ku abtirsadaan magaalo dad baa waxay ku abtirsadaan wabi dad baa waxay ku abtirsadaan jasiirado moogta marka dadkaas magaalada ku abtirsado waxa kamid ah dadka la dhaho reer xamarka oo kale midalan waxa kamid ah dadka baajuunta oo kaleeto oo hadhowdii si detail aan u galeynaa oo jasiiradaha ku abtirsado waxa kamid ah dadkan reer Shabeelle la leeyahay waa qabaa'il shacbura jareer bay leeyihiin jileec bay leeyihiin laakiin waxay associated ku yihiin inay wabigaas ay isla degan yihiin oo magacaas wabigaas ay wadaagaan moogta halka marka barnaamijkeena anaga researchkeena uu marayay waxa burburay dalkii waxa dhashay jabhado qabali ah oo 4 xaraf 3 xaraf 5 xaraf waxay rabaan ka koobnaadaano khasab ay tahay inuu hal xaraf s noqdo moogta oo magac Soomaali ah wato dadka ayaga ah qaranka Soomaaliyeed bay dumiyeen dadka Soomaaliyeed baa magaca ay wataan ay ku burburiyeen boqolkiiba 90 dadkeena meesha jooga ama waalidkiina ama idinka laftigiina burburgaasaad ku imaateen jariimo fara badan baa magaca esta iyadoo la wato qaranka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed baa laga galay moogta 10 sano taqriiban baa dadka taa lagu burburinayay moogta shirar fara badan oo Itoobiya ka dhaca oo Kenya ka dhaca oo Qaahiro ka dhacay iyo magacyaalka ku tageen moogta kadib waxa dhashay 2000 shirki ka dhacay Carta moogta shirka Carta ka dhacay doodo fara badan baa ka furmay waxa la dhahay warbahalkan maxaa la isugu qarinaa moogta hadiiba qabiil la isku dilaayo ma qabiil loo wada hadlo inuu sax yahay qaabka wax loo qayqaybiyay iyo inuu khalad yahay waa su'aal dadka dhan u taala moogta laakiin shirka waxa ka soo baxay si xal loo helo oo hal mar ah in dadka Soomaaliyeed si qabiil wax loogu qaybiyo oo si waliba aan xaq ku fadhiin moogta la dhaho 4 qola isleeg oo aan la aqoonin isleegihiin kale moogta waxa kale oo la qaaday dad ay iyagu markaa dhaheen waa minority waxa laga dhigay half oo qolada kale marka hal la siiyo iyagu marka ay hal qolo halfkid ay helayaan marka digil iyo mirif xabad waxay la simeeyeen dir oo hal ah waxay la simeeyeen hawiyo hal ah waxay la simeeyeen daarood oo hal ah
waxaa waaye markaas beesha shanaad oo haaf ah marka ayaa beesha shanaad waa ilaa 14 15 qabiil qaar badan oo kuwa aan sheegayno la caburiyana way iska soo bixi doonaan way ku biiri doonaan demoogta halka marka barnaamijka uu marayo waa tii dawladda Cabdiqaasim qaabka lagu dhisay oo Cali Khaliif ka noqday ra'iisul wasaaraha waa la soo socday waxaan u maleynayaa doctorkii aan wada joognay waxa la isugu imaaday meesha la yiraahdo Eldoret kadibna waxa la tagay meel la dhaho Imbigati oo Kenya marka sheeko cusub baa la keenay markaas oo ah 4.5 ka jiro laakiin waa in systemka oo dadka Soomaalida la isugu keenayo maadaama dagaal u dhacay burbur dhacay la kala irdhoobay dadka ay qolo walba ay meel dabada ay la gashay in kalsooni la abuuro system oo federaal ah oo midnimo Soomaaliyeed lagu keeno waa in la qaato moogta halka marka waxa ka soo baxday in federaal system la qaato waxa ka soo baxay axdi qaran axdiga qaran marka wuxuu qeexaa federaal hadii la damcay in la qaato dadka qaadanaya nidaamkii iyo sharciga ay ku qaadan lahaayeen oo ah laba gobol iyo wixii ka badan moogta markaas wax oo maamul goboleed ah waxa jiray Puntland ani xogaa hadaan isaga ki sheekayno waxaan dadkii oo caatifadooda dad raacay laakiin wadaad miihiya wadaad miihi islaam baan ahay laakiin waxaan kamid ah dadkii oo raaceen markii maxkamaduhu ay jabeen inay barnaamij oo xaraka Soomaali ah oo dadka Soomaalida ay ka wada qayb galaan in la sameeyo baan raadinay diasporada Soomaalida kamid ahayd ururada bulshada Soomaaliyeed baa kamid ahaa dad baarlamaanka Soomaaliyeed ku jira kamid ahaa maxaakiimtii baa kamid ahayd waa kii markaas asmara ee meelaha la tagay waxa ku horeysay Dooxa kadibna waa kii la heshiiyay oo markaa dawlad midnimo qaran la sameeyay marka aanu waagaas waxaan galay baarlamaanka waxaan kamid noqday dawladdii markaas dhalatay marka waxaan idin ka sheekeynaa aan goob joog ahaa marka waxaan goob joog ahaa waxa kamid ahaa guddiga farsamada oo Djibouti shirkeedii ana gudoomiye oo ahaa marka goob joog baan ahaa markii la qaadanay 4.5 ka duq baan ahaa tan oo Imbigati waan wada joognay aniga iyo doctorka iyo markaas waxa la bilaabay marka in fakarkii ahaa la develop gareeyo qaabka ay ku suuragali lahayd in la sameeyo nidaam dadku isugu yimaado aanu markaas dawladii aan kamid ka ahaa waxaan heshiis la galay markaas dawlado waxa marka la go'aamiyay in saddexdan gobol oo Jubbooyinka oo koonfurta ah la isku dayo in xaq jirka laga xoreeyo isla mar ahaantaasna maamul iyo nidaam oo qaranka Soomaaliyeed qaabka loogu talagalay ku biira oo kamid noqda in laga dhiso marka ujeedada marka aan rabo inaan example kan u qaato waxyaabo badan oo waxa jira maaragtay wax kasto la sameeyo waxba wax diidaa moogtay marka dadka Soomaalida qaar baa waxay iska qabaan meel kasto Soomaali isugu timaado in ay 4.5 la dabaqo moogtay marka anaga markii aan barnaamijkan aan ka shaqeynay waxaan sameeynay wax la dhaho maabinka marka waxa waaye in aan dhulka la barto moogtay oo qabaa'ilka ku nool la barto ileen waxa la dhahay qabiil waxa lagu qaybiyo yaa la dhahay marka degmo walba la tagaa waxa la sheekaysan cid allaaliye cidii ama dhakhtar ka noqotay deegaankaas waxaan raadinay cidii deegaanka maamulkeeda ama DC ama gubernatore noqotay waagi hore waxaan raadinay dadkii LDI-da ahaan jiray Livestock Development Agency oo dhulka yaqaano marmari jiray dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeynayay dadkii aqoon dalka u lahaayeen iyo dadkii deegaanka deganaa in lala sheekaysto oo la ogaado dadka meesha ku nool marka ayada markii aan anaga daraasaadka aan dhameynay waxaan noo soo baxday in ay ku nool yihiin meeshaas 38 qolo dad badan bay dhibay moogtay sheekadaas marka
soddon iyo sideeddaa qolo su-aasha imaanaysa waa yaa qola ah maanaa intaan meel iska soo fadhiista waxaan dhahaa qabiil baan ahay marka waa inaan qabiil ahaan wax ku qaato ma soconayso Soomaalidu waxay leedahay structure hab dhismeed bay leedahay dhaqan bay leedahay hab dhismeedkaas waxaa beel ah ama dhiig ha noqoto ama isbahaysi ha noqoto morally isbahaysi ama ogti waxaa muhiim ah dadkaasi inay dhul leeyihiin moogta waa dad dhul degan waaye xoolo dadka Soomaalidu waxay u yaqaanaan hanti waa geela iyo lo'da moogta leh waa inay noqdaan dad magna bixin karo magna qaadan kara waa inay magac leeyihiin waa inay sumad ay xoolaha ku dhigtaan leeyihiin waa in nin duub ah suldaan imaam ugaas waa inay yeeshaan conditionka hadduu buuxiyo dadka meesha degan ay buuxiyaan waa beel waxaa dhici karta hal beel inay 10 beelood noqoto oo ayagoo magac kore wadaagaan haddana waxoodaas iyo differenceskooda ayagu ay leeyihiin uu kala qaybsan yahay marka macnaheedu ma aha 38 reer oo kala kaan ama ah moogta waxa way unit ahaan conditionka asaga 38 buuxisa daraasaadka marka maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay 4.5 in Soomaali oo dhan meel ay isugu timaado ma ahaane meel deegaan oo Soomaalida lagu dabaqi karo inay jiro sababtu waxa waaye qabaa'ilka Soomaalidu meesha ma wada degana si simanna oo ma wada degana haddaad 4.5 dabaqdana qabiil deganna waa dulminee qabiil aan deegaan meesha ku lahayn waxbaad siinaysa waa qodob waxaa kaleeto oo anaga nooga soo baxday meesha in habka ugu fiican oo non meesha kaliya ama Soomaaliya oo ugu fiican si wajigan waan fasiri doonaa wajiga si heerka hore looga baxo oo dadka oo dhan ay u noqdaan dad wada shaqeynayo oo isku dan ah oo isku meel u socdo ay u noqdaan waxa loo baahan yahay in shaashada nidaamka koobaad oo dhalanaya inay cid walba iska aragto waa inay ama judiciary-ga ku jiraan ama waa inay fulinta ku jiraan ama waa inay xeer dejinta ku jiraan waaye moogta marka annaga marka waxaa noo muuqatay koow nidaamkan inuu yahay nidaam haddii la rabo oo si fiican loo dabaqo noqon kara nidaam lagu dabaqi karo gobollada kaleeto oo maamuladu ay ka dhalanayaan waxaa kaloo iyadana aan gaadhnay markaas in haddii la rabo in maamulada la sameeyo in loo baahan yahay labo waji laba face oo face-ka koobaad uu yahay mid oo maaragtay dadka oo dhan ay isku mid noqdaan oo si representativity ah marka ugu horeysa dadku ay wax u wada samaystaan face-ka labaadna markii nidaamka la dhiso intercoob la sameeyo meeshii dadku ay ku badan yihiin kuraasida loo badiyo meeshii dadku ay ku yar yihiin kuraasida lagu yareeyo marka kadib axsaab la suubiyo fakar uu dhasho cod qof santuuq aragti ah uu dhasho deemoogta marka anaga barnaamijkaas baan dejinay marka barnaamijka markaan dhamaynay waxaan isku daynay haddii ay dhici karto in Soomaalida kale ay ka faa'iideysto inaan u gudubno gobollada kale oo Soomaaliyeed sida Bay iyo Boqol iyo Shabeellada Hoose Bay iyo Boqol iyo Shabeellada Hoose markaan tirakoob degmada iyo dadka ku nool oo nidaamka aan sheegaynay oo beelaha aan eegno waxaa ku nool 54 beelood 38 waxay ku nool yihiin Shabeellada Hoose maaragtay ay ku nool yihiin Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa ku nool 18 beelood Galgaduud waxaa ku nool 12 beelood marka haddii qaab noocaas oo kale waa ugu yaraan waaye waxaa laga yaabaa kuwa aan aqoon oo aan ilownay oo maaragtay aqoon darideena iyo maaragtay ay keentay inay ku soo biiraan laakiin mabda'iyan in oo qaabkaas la isku dayo inay wajiga koobaad dadka la isugu keeno marka intaas marka aan sheekada guud uga baxno
waxaan galaynaa marka sheekadii oo qabiilka iyo marka waxa uu yahay iyo marka qabiilka definition ma bixinayno laakiin waxaan idin siinaa example moogta example-da hadaan ka hadalay waxaan dhahnay waable iyo waranle iyo wadaad buu dadku noqday dad baa waxay ku abtirsadaan magaalooyin dad baa waxay ku abtirsadaan kuwa kale waan fahamnay laakiin hadda waxaan aadaynaa reexamar hadda reexamar waxa waaye waxaad arkaysaa dadka markaad la sheekaysato dadku waa laba qolo sheekooyin kale inoo sheego oo meel cidla ahayd oo dad carab ah imaadeen oo degeen waxba kama jiro meesha waa la deganaa carabna waa imaatay moogta dadkii marka meesha deganaa oo saldhig ahaan meesha u deganaayeen markii hore deformation baa ku dhacay qawaacid baa la dhahaa laakiin ayagu reexamarku waxay dhahaan qawaacil moogta marka ay reexamarku hadlayaan waxay ku leeyihiin afarta xamar weyne waa qawaacisha waaye iyo shuyuukhdooda baa la dhahaa marka afartaas mid waliba ayadaa waxay tahay association bay tahay waxa waaye waa reer moorshe waxaan u maleeyaa reexamarku uu garanaa moorshe maaragtay iskaashato magaca laftigiisa isbahaysi oo aan qabiil ahayn waxaa dhoorweyne waa iskaashato inta qabiil oo xawaadla ku jira waxaa ku jira cawramale waxaa ku jira karanle waxaa ku jira allahu mustacaan qabaa'il carbeed oo sida gadactiga oo kaleeto waa reefaqiga moogta yaa ku jiraan marka waa associated waa dadka Soomaalida oo qabaa'il kala duwan ah iyo dadka carabta oo ku soo biiray qolada afraad waa bandhabow shangaanina waxaa degan 5 qabiil oo dad madow iyo dad cad ka kooban jaziira meesha la dhaho waxaan u maleeyaa xasan xaaji uu joogaani waaga mar baan jaziira mashquul ku ahaa moogta oo waa sidoo kale dad oo deegaanka meesha loogu imaaday iyo dad aad baan u tagi jiray waxa way waana dadkaas waa dad khutuud leh oo wax qora oo abtirkooda yaqaan oo meelaha ay ka yimaadeen marka dad cad oo caadi ah oo aad arkayso in ay yihiin maxaa la isheeg hadda ka imaadeen jasiiradda carabta iyo dad Soomaali ah oo madow oo nooc walba leh baa wada degan meesha la yiraahdo gandarsho waa sidoo kale jilib marka waa sidoo kale waxa tageysaan marka waxaa jirta wax la dhaho 12 koofiyo 12 koofiyad waa qabiil waaya marka 12 kaas koofiyo 6 waa madow 6na waa cadaan darabta waan idin akhrinayaa 6da marka oo carra joogta ah waxaa kamid ah fasaxaale waxaa kamid ah tuunjo waxa laga magacaalka aanaydan maqal waxaa kamid ah shukureere waxaa kamid ah axmed nuur oo ayagu qabaa'ilka xamar dago bandhabow kamid ah waxaa kamid ah reemaayo waxaa kamid ah garjanta baraawe 6daas waxa waaye waa 6da carra joogta oo dalka loogu imaaday oo madowga ah waaya haddii la sii raacraacana qolo walba qabiil Soomaali oo qabaa'ilada Soomaalida meelaha yaacay uu galaya 6na waxa waaye waa gibil cad moogta 6da gibil cadka waxaa kamid ah duruqbaas hadayna waan sheegnaa u maleynaa waa Cumaaniyiin waxa waaye duruqbe daarul quba oo deformation uu ku dhacay waaye hadda ma aqaan reechi butimeesho waa jooga baan maleeyaa way xorriyada dadka Soomaalidu meesha ku nool Faransiiska ma aqoon marka mudaharaadka marka la sameeyo xorriyada loo dhawaaqayo islaamaha marka warsato waxay ku leeyihiin waa xilligii budubadaaga moogta budubadaaga waxa waaye independent waxa lagu dhawaaqa independence ayagu ma yaqaanaan ereyga fonetigaas uu soo gaaray bay kugu sheegeen haday rabaan inay ku dhahan xilligii oo xorriyada waxay ku leeyihiin xilligii budubadaa moogta baa lagu dhahaa marka halkan waa daarul quba waxa waaye dadka meesha degan oo cadcad waxa kamid ah gaameedle waxa kamid ah xaatimi baraawan waa degan yihiin ashraaf bacalawi ashraaf bin xasan al-ahdali waxa degan shaanshi waxa degan maxaa waa inta waaye inta cadcadna waxa marka ku biirsan dad kale oo far badan oo kor ka yimid iyo dadka Soomaalida oo deegaan ahaan meesha degan oo qabiil walba ka kooban baa degan laakiin dadka asalka ah oo asaaska ah oo reemarka ku abtirsadaan 12 kaas waay qabiilna ma aha waa marka waay
reemarkood way magarat baraawe haddaad timaado baraawe ayagana waxaa jira dadka Gibil Cadda waa ashraaf bay leeyihiin waxay leeyihiin dad la yiraahdo biida waxay leeyihiin dad la dhaho xaatimi iyo dad la dhaho baa Cumar moogtay waxay associate leeyihiin shangamaska laftigeeda waa isbahaysi waaya waa 5 qolo 5 gamaas waa 5 waran waa 5 dab waa 5 aqal ayaguna waa association waaye kuwaana waa association carbeed iyagiina inta isku darmay association noqdeen waxaan soo marnay dhan marka waa isbahaysi marka waxaan rabaa inaad saa ula socotaan qabiil taagan ma jiro dadku waa reer xamar meeshii origin ahaan ay sheeganayaan sheegtaan waa reer marka waa reer baraawe saylac baa raacayso saylac waxa way magaalo keyskeeda uu special yahay magaalo aqooneed magaalo diineed magaalo waliba meesha kaliya oo laga heli karo dad Soomaali ah oo madaahibta fasira oo buuq qora waxay ahayd Saylac moogtay waliba madhabtu ma aha tan hadda anaga aan ku dhaqano Shaaficiga laakiin mutarjimiin waxay lahaayeen oo Axnaaf moogtay madhabtan Xanafiga ah ayaga xoog u tarjumeen maaragtay jasiiradaha aan dhaqsanaynaa jasiiradaha marka waxa way waa baajuun laakiin baajuun hal reer ma aha baajuun xogaa yar oo aspect ayaan idin ka siinaa carab degan waxaa degan maale dad Maleeshiya ka imaadeen waxaa degan oo kamida dadka dad Iiraan ah waa kamida waxaa kamida dad Jareer ah waxaa kamida qabaa'ilka oo meesha degan dad ka soo jeeda Garre Ajuraan ogaadeen oo baajuun awaya markaad ayaga dhex gasho ayaga isheega moogtay hadii ay yihiin asal ahaan Persian hadii asal ahaan yihiin Hindi hadii ay Maale yihiin marka dhinaca Maaleega marka laga hadlayo qarniga 14aad waxaa imaaday doonyo halkaas waxay ka bilaabeen imaatinkooda xeebaha Kenya mareen Comoray degeen xoogoodu waxay degeen jasiiradda Madagascar qabaa'ilkan oo indha yarta oo Madagascar buuraha dhexda ku yaalo degan oo marna la dhaho Hooba marna waxaa la dhahaa Mirni waa ayagi waaye innaga waxyaabaha aan ka garanayno oo ay ka tageen waa muuqaalka dadka qaarkood iyo doonidan oo baalasha leh oo katamaraanka la dhaho baajuuntu way isticmaalaan waana Asiatic waaye iyo architectiga guryaha sida loo dhiso moogtay marka dhaqan ahaan iyo xadaarad ahaan waxa waaye inahaas baan ayagana ka dhaxalay iyaguna marka waxa waaye waa isbahaysi wabiyalka waan dadajinaynaa waxa waaye wabigan Shabeelle waxa associated ku ah qabiil walbo moogtay Jileec Jareer maaragtay magacyadoodu farbadan yihiin reer Shabeelle hadii la dhaho reer Shabeelle waa wixii wabiga ku nool waaye marka liiska hadaan galno oo qabaa'ilka marka meesha degan caawa dhan kama baxayno laakiin qofku wuxuu isu arkaa inuu yahay reer Shabeelle hadhow cidii taqaano u tagto wuxuu ku dhahaa waxaan ka ahay ani guri hebel baan deganahay guri ayaga waxay dhahaan tuulada oo makacdada guri hebel baan deganahay reer hebel baan ka ahay wax saas oo kale marka hadda marka waxaan u soo wareegaynaa marka dadkan oo reer guuraaga iyo Soomaalidii kale oo jacburka ah baan u soo guureynaa waxaa jira marka formiga aan mar walba waxaan develop gareynaa idinka reeraad iska tihiin aanu saas ugu maadadkii moogtay laakiin waxa way anigu waxaan idin sheegaa oo kali ah in oo isbahaysigu uu xoog leeyahay moogtay marka waxaa jira reero ku dhasheen isbahaysiga bilowga ay dhasheen isbahaysi waaye yaa kamida aji dadka Soomaaliyeed oo diinta Islaamka qaadeen oo dhinaca koonfurta maaragtay geeyeen ilaa iyo Kenya dadkaas xeer hoosaad oo xeerka Soomaaliga ka hooseeya oo la dhaho xeer aji bay samaysteen dhulka ayaga islaamiyeen iyaga qabteen marka aji baa la dhahayaa hal qabiil ma ah 100 qabiil oo Soomaali ah oo isku dhex jirta waaye ajigan oo abtirku uu maro oo sheeka xariirada dirta dhex gala kama ahaya waa mid kale midkan ya waa ko Ciise qabiilka Ciise la dhaho waa association
saddex ciise saddex soo raac waay gadabuursaa tagaysaa gadabuursiga waa samaroon iyo soo raac waa association magarat haddaay waxaan sheegnay shangamaas magarat waa association oo 5 qolo isu tagtay waay tunni toore nimanka la dhaho ayagana tunnida oo degan baraawe ayagana waa 5 qolo associated waay jaamacadda ama jamaacada la dhihi jiray baar dheere oo boqortooyadii galadu ay dumiyeen waxay ahayn dad fikir islaami isugu tagay oo qabiil kasta oo Soomaali iyo non Soomaali aba leh oo jaamacada meesha ka sameysteen oo degeen oo diinta islaamka faafiyaan oo aragti Soomaali oo cusub la imaadeen ba meesha degan ilaa ay haddana waa jiraan ya jaamacada baar dheere way jirtaa qabiilna ma leh waa isbahaysi magarat waxa kale oo asagana ku dhashay isbahaysi maalin guur qabiil la dhaho maalin guur hadda markii la ogaadeen waa la dhahaa 15 qabiil oo kala duwan oo Soomaali ah ba maalin guur la dhahaa waa in maalin isla carootay oo guurtay waay magarat maalinkaas ay guureen magacaas ay qaateen waxa kale oo jira qabiil la dhaho 10 tolle moogtay 10 tolle waxa waay waa 10 qabiil oo isu tageen oo magaca la baxeen waxa kamida beesha shanaad ee aan ugu talagalay inay mushkiladii oo arta lagaga baxo ee hadda shaatiyada iyo karabaatiga iyo jaakeet kale xididaysanaysa xoogsanaysa kobcaysa moogtay oo dhalashadeedii anaga aan taagnayn waxa kamida bahamagan ayadana waa qabiil ogaadeen ayagana waxa kale oo jira hadda qabiilkan ogaadeen ko la dhaho bahgari reer ahaan dad isku hooya oo jiray ahayn moogtay laakiin aase qolo inuu u jiro Sayid Maxamed baa sameeyay magarat hartiga Kismaayo hartiga naqaana ma moogtay Kismaayo hartiga jooga saddexda qolo oo anaga hartiga u naqaana ma ahana waa 15 qolo dadka Soomaalidana markii qolo ay meel ku badato inta kale oo isu tagi oo isbahaysan si loo balance gareeyo qabiilka kale oo xooga marka asagu leh cawramala kamida anu soo gaaraya cawramale gaal jecel maxaa la sheegeen Arab Saalax Hortable Leelkase saddexda aan naqaano caadiga oo hartiga ah Sheekhaal intaas oo dhan mareexaan oo la isku daro mareexaan mar dambu ka baxay laakiin Zoli ninkii gubernatoraha ugu horeeyay oo markii lagu soo daray Jubbooyinka koonfurta Soomaalida ninkii ugu horeeyay gubernatore ahaa oo Talyaani ah buu qoray cidii rabta magaciisa qaadan librariyada ka raadiso oo idin fasira inta ka koobnaayeen iyo waxay yihiin iyo waxa soo dhan waxa kale oo jira oo ku soo afjarayna markaas groupkan isma dhaxal qabiil la dhaho buraashadley waad maqashay maamuleyna buraashadley isma dhaxal waxay dhasheen 1941 markii Talyaanigu uu weerarka ku qaaday Ethiopia Soomaali far badan oo askar la qoray Soomaalida far badan oo askarta ahayd waxay waliba u badnaayeen gobolada dhexe marka askartii Talyaanigu waa jabay markuu jabay askar far badan oo askartii Talyaaniga oo meelihii laga soo qoray tagi waayay ba waxay ku go'doomeen aagan oo Bakool moogtay marka buraashadley macnaheedu waxa way askartu buraashaday wadataa moogtay ay biyaha ku shubtaan waxa loo bixiyay buraashadley kadib dadkii marka meesha degay oo is urursaday oo meesha dadka la degeen oo iyagu entity damceen inay sameystaan oo qabiil walba leh waxa isma dhaxal u soo bixi doona midkii iyaga kamid oo dhintay generation-koodii koobaad cidda naagtiisa dumaalayso iyo cidda xoolihiisa qaadanayso meel kale ka imaanay qabiilkii sida ahaa waxay ku dadaaleen inay isaystaan oo ay deganaadaan 1969 doorashadii ugu dambeysay kursi heleen waxaa jira dad ayagu deegaan moogtay ama qaab uu dhul u egyahay magacood oo isku bahaysta ama maamul laga yaabo inay ka tirsan yihiin ama ay soo haystaan inay ka tirsan yihiin oo xuduudiisa aanay garanaynin magacyadood qaata ciid ay ka badan yihiin hadda rayad oo kale marka la dhaho ereyga rayad waa dadkii
ingiriisku uu gumaysanayay shacabkoodii marka waa raaciyadii waqooyiga Soomaalida rayad marka la dhaho waqooyiga khusaysaa moogta daraawiish deegaan bay khusaysaa boqortooyada Cali Yuusuf dadkii taabacsanaa dhabeeya calaha moogta mararka qaarkood waxaad arkaysaa maaragtay reedooy reedoolo reedoheed reeduleed dhul baa la qaadanaa markaad tagto hadda dad waxaa jira dadka degan baran zoonaheeda baran wixii galbeed ka xiga waxaa la dhahaa kore wixii dhinaca oo maya wixii ka xiga bari waxaa la dhahaa kore wixii dhinaca qabiil doonay ha noqdo wixii ka degan galbeedkana waxaa la dhahaa macaayid moogta marka macaayid hadii la dhaho association oo cid walba ay imaanayso dhinacan Jabuuti iyo Awdal iyo zoonaha marka timaad waxaad arkaysaa la dhaho qorax joog dhagax joog casar joog maaragtay waxaad arkaysaa reer saaxil wax entity oo gaar oo go'aan ma leh waa association waaye waa isbahaysi marka waa qabiilooyin badan hal reer ma cabirayso moogta magaalooyinkan way raaciday moogta magaalooyinkan ka hadlayna waa reer Seylac waa reer Jabuuti waa reer Xamar waa reer Bakool ya okay qoladii qolaa ani waxba hay warsanina moogta waxaan marka hadda idin sheegaa inta qabiil oo Soomaaliya oo aad taqaanaan qabiilooyinka is sheegta moogta ama adigu waxaad dhahdaa adaa aniga ee ah ama aanu aan ku dhaho adiga ee ah moogta laakiin waxaan idin sheegaa inta aan xusuusto qabaa'ilka Soomaaliga oo is sheeganaya magarad hadda مثلا hawiye iyo daarood oo kale مثلا leelkase iyo xawaadle oo is sheegtaan qolo sheegata ani qoladaas qolada ma dhahaya waxa is sheegta xawaadle iyo qabaa'il kamid tolomoge oo is sheegtaan harti abgaal iyo harti daarood waa fictive waxa laga yaabaa inuu yahay magaca oo isu eg laakiin waa la is sheegtaya haddana warsangeli abgaal iyo warsangeliga daarood waxba ka dhaxeeyo laakiin waa in la raadiyo sacad iyo makaahil waxba ka dhaxeeyo cali gari iyo duduble waxba ka dhaxeeyo murursade iyo siwaaqroonna waxba ka dhaxeeyo murursade iyo makaahilna waxba ka dhaxeeyo macallin dhiblaawe oo abgaal oo wacaysla ah iyo siwaaqroonna waxba ka dhaxeeyo moobleen iyo baalcadna waxba ka dhaxeeyo cawramale iyo warsangelina waxba ka dhaxeeyo hawiye iyo waxaan imaanaynaa haddana raxaweyn ya jilible qabiilka la dhaho iyo sheekhaal kee ah shaqo ku meel yani marka waxa waaye haddana hadamo iyo gaaljeel ama gaaljecel waxaa jira hadamo haddana iyo jajeelo waxaa jira haddana hadamo iyo ogaadeen haddana waxaa jira galadi iyo wacdaan marka meesha boqortooyada ka jirtay oo galadi ah marka qabaa'il fara badan oo Soomaaliyeed oo abtira kala leh yaa boqortooyada kamid ahaa markay rabaanna hadda markii galadiga laga hadlaayo boqortooyadiisa waxa gala hintire waxa gala wacdaan waxa gala murursade waxa gala silcis ba galayo marka waa la is sheeganaa moogta marka halkan galadi iyo wacdaan waa galadi iyo murursade waa galadi iyo silcis waa xariin iyo cawramale maaragtay xariin waa qolo oo raxan weyn waaye codku mugay wala maqlaamiya haddana waxaan haddana imaanaynaa daarood iyo raxan weyn haddana geeladle iyo ogaadeen moogta hadama iyo ogaadeen eelay iyo ogaadeen liisaan iyo dhulbaante liisaan iyo ogaadeen lawaay iyo geri yaantaar iyo geri xariin iyo warsangeli diisow
iyo ogaadeen hubeer iyo geri haddana waxaan u gudbaynaa dir iyo daarood garxajis iyo ogaadeen habar yoonis iyo warsangeli habar jeclo iyo warsangeli cawliyahan iyo habar awal cali ganuun oo gadabuursi ah iyo bartire gadabuursi iyo ogaadeen ciise iyo mareexaan makaahil dheere oo gadabuursi ah iyo abrahin gadabuursi iyo mareexaan gadabuursi iyo warsangeli ya waxba kama jira sheekada ka sheekeynaysa waxba kama jiro nin walba maalin buu meel u yaacaa meeshuu rabo ka baxaa wixii asaga ya marka haddana dir iyo hawiye marka waxaa jira abgaal iyo dir maaragtay waxaa jira abgaal iyo ciise waxaa jira sheekh aljaziira iyo macalin dhiblaawe waxaa jira xeeb jire oo gadabuursiya iyo awqudub dir iyo raxan weyn haddana ya waa gare iyo dir biyamaal iyo galadi macalin weyne iyo ciise macalin weyne iyo isaaq maaragtay waxaa kale haddaan dhex gallo waan ku lumaynaa marka waxaa waaye haddaaya waxaan idiin sheegay qabaa'il waxaa jira isrogroga hadda qabiilka la dhaho hubeer markaad abtirada soomaaliga fiiriso waxaa waaye waa yahaabur soomaale waxay ku leeyihin waxaan nahay yahaabur soomaale marna waa raxan weyntu waa 8 iyo 9 sagaalkay ka tirsan yihiin mar kalena waxay noqdaan maataay oo digil ah moogta marka kolba kaarkii markaas oo shaqeynaya ayaa lagu shaqeynaa marka waxaa kaloo jira dabare oo kaleeto mar waa digil marna waxaa waaye maqaaro samaale maaragtay gare mar waa digil marna waa gare samaale tunni mar waa ciise digil oo waa digil marna isbahaysiga baraa way ka tirsan yihiin waxa oo aad iyo aad muhiimka u ah oo aan jeclaan lahaa inaan markaas aan in yar idiin fasiro waxaa weeyaan annaga marka aan burburnay oo waddankeena uu burburay oo burburku annaga gacanteena ku dumay oo aan samaynay sheekooyin fara badan baa soo baxay moogta sheekooyinka faraha badan oo soo baxay qoraayaalka qaarkood waxay qabaan inaan annagu aan nahay dad xadaaradii iyo ilbaxnimadii isticmaalku uu keenay aanaan waxba ka faa'iidaysan markii horena aan dugaag ahayn haddana loo baahan yahay duurkanaga iyo dugaagnimadanadii inay aan ku noqono oo aanaan ahayn dad oo structure fiican iyo nidaam iyo ilbaxnimo leh marka ani waxaan rabaa inaan idiin sheego boamboorta qabiilka meel baa la dhigaa laakiin barnaamijkan hadda isbahaysiga oo soomaalidu inay isaysataa structurekiisu waa structure adag waaye moogta waxaa waaye imageka bulshadu ay u samaysan tahay waa imageka qofka bani aadamka uu samaysan yahay baa laga dhaaganaa markaad abtirada fiirinayso iyo sida dadku uu isu raaco wuxuu ka bilaabanaa qoys waxaa ku xiga reer ama waxaa ku xiga heer waxaa ku xiga jilib waa ogada dadka waaya waxaa ku xigta laf waa bowdada waxaa ku xigta sintu meesha ay sinta kale kaga xidhanto oo qola ah moogta marka qoys marka laga hadlayo waa aabbo iyo hooyo iyo caruur reer marka laga hadlayo waa qoysas isu tageen baa reer noqon karo haddana reere isu tageen baa jilib noqon karo haddana jilbo isu tageen baa laf noqon kara lafa isu tageen waxay noqon karaan qolo marka halkaa waxaad ka garanaysaa in oo originally dadka Soomaaliga structurekiisa iyo xadaaradiisa ay tahay xadaarad qoto dheer oo ku salaysan hab nololeedkooda ayaga ama isbaayis ha doontaano ama qabiil ha doontaano laakiin waxa waaye
in ay sidaas ay u samaysan yihiin qoys marka afka Soomaaliga markii etymologically la eego waa qoobka inta ka hooseysa waaye oo laabmaysa cagtu meesha ka dhaqaaqdo anqowga wixii ka hooseeya waxa la dhahaa qoys heerkana waa kubka jilibka oo ayaduna aan meesha saddex meelood buu qabiilku uu ka yahay muhiim meel waa cagta la dhigo oo laabka ah waa odaygii iyo habartii oo unug ah moogta iyo reerkii jilibkuna waxa waaye dadka ugu horeeya oo magta waxay u kala baxdaa jifo iyo magdheer moogta marka jifadaas oo qolada waranka iska leh iyo qolada waranka uu ku dhacay ay kala qaataan waxa waaye jilibka reerka yaa qaybta hore 40% 33 qolada wax dishay baa bixinaysa waa jilib ma garatay waxay siinaysaa qolada jilibka oo uu ka dhashay qofkii la dilay marka kadib balan baa la qaadanaa waa magdheer marka qabiilkii oo dhan baa marka balan intuu qabsado waxa leeyahay 60 xoolaha haray hal ururiyo oo magtiisa lagu bixiyo structure ka mid waaye waa koow structure ka labaad oo muhiimka waxa waaye qofka oo reerka madaxda u ah waa madax moogta madaxa noqdo meesha oo gunto asalka oo qofka bani aadamka dadku ay qabaan marka aad fiiriso xiriirka la raaca marka qofka hadda jira oo nool oo boqorka asaga madaxii ah laakiin abtirkiisu waa laf dhabarkiisa ilaa daba gibinta lagu tago Soomaalidana markay sheekeynayaan waxay dhahaan oogada qofku way baabaadaa laakiin lafta ma baabaado moogta ma baabaado ereygan oo ah boqorka midalan markaad fasirto mar waxa waaye gabdhaha aan la guursan wali bahalka ay dhexda ku xidhaan oo midabyada leh moogta isaga iyo dhaclaha gabadha hadii la guursado bahalka way tuure moogta marka inta aan la guursanin waa qof dhowrsoon oo karaamo leh waaye hadii la guursado ay wax dhasho bahalkii la tuuro waxa waaye qof caadi ay noqonay qofka boqorka ah oo la duubayo marada ay dhexda ku qabto oo midabyada leh mara u eg ba markii la boqoro la saara moogta asagu wuxuu yeelanaa marka karaamo buu yeelanaa boqorku marka waa dhexdhexaad marka la dhaho dhexdhexaadku wuxuu noqonaa xudunta markaad fasirto waxa ku toosan min waxa laga yaabaa markaas in abtirkan aabaha inta aanan imaanin abtirka dadka Soomaalidu ay ku abtirsadaan inuu ahaa hooyo moogta sheekada Soomaaliga ay abtirada qaar koodna habar iyo bah iyo baho iyo waxba jira moogta marka structure kaas oo caadiga ah oo sida u adag waxa waaye dad iska waalwaalan oo aan fakareynin ma sameyn karaan waxa kale oo image-ka bulshada leh geedka moogta geedka leh geedka wuxuu leeyahay xidid wuxuu leeyahay gun wuxuu leeyahay jirid wuxuu leeyahay laamo wuxuu leeyahay caleemo iyo midho uu leeyahay geedka inta muuqata oo la arko waa abtirka aabaha raaca inta qarsoona waa inta guurka ku timaado waaye ama reebti ha noqdo ama xidid ha noqdano geedkaasi marka wuxuu mathalaa bulshadii oo Soomaaliga ahayd su'aashaadii dadkaas Soomaalida oo la quursado magaca loo yaqaan ma taqaan waxa la dhahaa gun dadka guurtida ah oo go'aanka gaadha talada reerka gaadha waa gun geedka salkiisana waa gun macnaheedu waxa waaye waa asal adi waa ka daaweyn adi dalka way kaaga soo horeeyeen jiritaan moogta cid iska imaatay iyo baqtu cunay iyo waxa male fakir diini ah imaaday aragti social oo bulshada imaatay way diideen baa laga yaabaa diina kale haysteen way diideen way ka aqoon badan yihiin waad gumaystay adi birta aad ku dagaalayso dhulka ku xoreynayso islaamka ku faafinayso ayaga ku tumay kabaha aad ku soconayso oo aad qodaxda isaga ilaalinayso ayaga ku sameeyeen maryaha aad qaadanayso oo ama harag la magdiyay ah ama alindida ayaga ku suubina
marka waxaa waaye waa dadkan hadda jooga ka ilbaxsanaa laga yaabo in ay diideen in ay maaragtay afkaarta iyo aragtiyada cusub oo jireen inay ku biiraan haddana marka aad fiiriso sheekooyinka qaarkood waxaa jira xilliyo sheekada Soomaaliga ay ka muuqanayso kala guur moogta oo qaab iyo nidaam baa laga guuraa qaab kala iman hadda islaamka marka laga hadlayo islaamka meelo waxaa jira ay muuqato xilliga intii ka horeeyay inuu dabacsanaa laakiin xilliga intii ka dambeeyay inuu adkaanayo bucur bacayr iyo yuusuf al-kownayn marka laga hadlayo waa fikri diini ah way soo ma garan waa kala guur moogta waxaa kaloo jira dad bartamaha marka la joogo nin waxaa laga sheekeeyaa la dhaho muruf maaruf miya ma aqaan asagana wuxuu ahaa nin oo gabdhaha intaan la guursanin markii la guursanayo isaga qaadan jiray isaga isu geyn jiray maaragtay ninkii naagtu inay isguursadaan kadib waxaa la dhahay waxaa yimid loo boge maaragtay marka loo boge yaa markaa diinta keenay isagii buu la dagaalay dadkii wuxuu ku dhahay idinka oo aan naagtiina la soo haysanin baa la idin meherina oo aad guursan kartaan waad soo imaanaysaa haddana koonfurta Soomaalida markaad timaado xaaraan madaare iyo geedibaabo marka fakarkaas wuxuu muujinaa kolba heer la nool yahay baa laga guuraa dadka geediga markaas socda diida ama waxay ogolaanayaan in ay dadka inta aan laga adkaanin waliba waxaan u maleynayaa dhaqanka inuu dhaqan oo islaam yahay maxaa yeelay islaamka markii oo dhulka la furanayay waxaa la sameeynaa magaalooyinka waa la xeeraa waa lagu wareegsan dadka waxaa la diinta islaamka qaata haddii ay diinta islaamka qaadan waayaan hadday qaataan xoolahooda ayagaa leh noloshooda ayagaa leh cid dhacaysa iyo cid boobaysa ma leh wada hadalkaas hadday ka soo baxdo inay masiixi yihiin oo ay dhahaan annaga diinteenaan haysanaynaa waxay haystaan haaf baa la qaadanaa waana la ilaalin hadday diidaan in ay diinta islaamkana qaataan in la wada noolaadana ay diidaan waa la dagaali wixii laga helo markaas waa la dhacaa ma garatay marka annaga laftigeena waxaa laga yaabaa afkaar intay dhalatay afkaarta ay dhalatay dad inay diideen total inay qaataan oo dagaal lagu waday ilaa la gumeeyo moogta dadna markay meel dhexe marayaan ay dhaheen waan qaadanaynaa oo marka ay association qabaa'ilka kale ay la sameeyeen dadna way iska qaateen moogta waa fasiraad moogta la fasiri karo marka fakarka asaga ayaan anagu aan ahayn dad oo yara jilicsan oo sida looga sheekeenayo dhaqankoodu uu ilbaxnimo uu ku fadhiin dhaqankeena ilbaxnimo ku fadhiyaa taariikh uu ku fadhiyaa afkeenu 7,000 sano jira xiriir baa waxaa la leedahay ilbaxnimadii dunida oo dhan marka waxaa waaye dad sida loo liidayo ama dhibaatada maanta aanu ku noolahay u liidan anaga ma nihin moogta marka waxaan ayaa proposal waxaan qabaa qabaa'ilka Soomaalidu ay sheeganayaan qarannimadanadii asaga dumiyay dhibaatada maanta haysta asaga mas'uulka ah laftigiis inuu asal yahay oo macna leeyahay shaki weyn baa ku jira mana aaminsan inuu jiro marka waxaan idin ahay oo idin soo propose garayna hadda waxaa waaye isbahaysiga ugu fiican oo aan ku midoobi karo oo aan ku shaqeyn karo waa qaran Soomaaliyeed waa midnimo Soomaaliyeed ma garatay waxa naga dhaxeeyo waa af waxa naga dhaxeeyo waa dhul waxa naga dhaxeeyo waa diin waxa naga dhaxeeyo waa xeer waxa naga dhaxeeyo waa calan iyo magac waay moogta marka kan inaan difaacno waxaan qashinka oo la wado ee Soomaali kala reebay ee tilaabo la gaari laayahay oo qofkii tilaabo qaada qabiil ahaan loo dilaa soo ma garan oo qof allaale iyo hadda fiiri qof alla qofkii xun oo Soomaali ah qabiil baa soo saara qof kasta oo qiimo lehna qabiil baa dila yaa marka waxaa waaye waxaan qabaa dhalinyaro jirto meesha fadhido kulli idinka hadhow sheegi doontaan oo aragtidooda iyo fakarkooda uu yahay in ay qabiilka ka hortagaan ma aha qabiil in laga hortago qabiilka waa in la fasiro in uu dhib dadka Soomaaliyeed ku yahay moogta
waana in la fasiro meeshii looga guuri lahaa oo dadka isu keeni karta meeshii looga guuri lahaa oo dad isu keeni karta waa qarannimada Soomaaliyeed waa in madax bannaani Soomaaliyeed la helo waa in midnimo Soomaaliyeed la helo waa in hore umar Soomaaliyeed la helo marka intaas waxaan jeclahay in aan mowduucan labaad aan ku soo gabagabeeyo maaragtay Professor Maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay qiiro iyo raxmad Soomaalinimo bay gelinaysaa in annagoo Soomaali ah aanu qabiil maanta ka sheekayno bud iyo birna aan isku haysan oo si cilmiyeysan oo caqliyeysan aan uga hadlayno professor waan ku mahad celinayaa marka waxaanu galaynaa session-kii labaad su'aalihiisii cidii session-kan labaad iyo wixii uu professor ku sheegay su'aal ka qabta waxaan jeclaan lahaa inay gacmaha taagaan Sheekh Cabdiqani baan dhibay Cabdiqani Bismillahir Rahmanir Rahiim walaalaha soo qaban qaabay barnaamijka aad baan ugu mahad celinaynaa professorkana waxaan leenahay jazaakallahu khayran dadaalka iyo cilmigaas maskaxdaada aad ku soo ururisay iyo buwaagtaba ee aad u soo bandhigtay ummadda aad ka dhalatay marka koowaad islaamka marka labaadna magacaas caawa aan meesha ku fadhino ku bahowday hal su'aal oo tacliiqa hadda professorka ugu dambeysay hadalkiisa waxaan rabaa inaan iraahdo shayga qabiilka waa shay fiican oo waa midda ilaahay uu leeyahay litacaarafu laakiin midda qof kasta oo damiir leh oo muslina oo Soomaaliyeed uu u baahan yahay inuu ka fogaado waxa weeyaan waa qabyaaladda su'aashayda aan rabo professorka inaan weydiiyo waxa weeyaan markaan taa intaa uga gudbo taariikhda islaamka inta aan ka aqaano iyo waxyaalahan hadda la qoro ee mucaasirka ah ama horay ama haddaba kuma aanan arkin ummad isdishay oo aan kala adkaan haddana aan heshiin oo la leeyahay qaran ha dhisato waa ummad isdishay oo aan kala adkaan haddana aan heshiin waa marka saddexaad ee haddana la leeyahay qaran ha dhisato marka professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo macquul ma tahay ummad isdishay oo aan kala adkaanin haddana aan heshiin inay qaran dhisato dad oo isdilay oo aan heshiin oo maaragtay aan kala adkaanin wax ma dhisan karaan horta inaan la kala adkaanin laftigeeda yaa xal ah moogta maxaa yeelay qof kasta wuxuu isu haystay inuu asagu inuu dad kale maquunin karo inuu maaragtay ka adkaan karo waxaa marka muuqata in dadka Soomaalida ay soo gaareen bisayl ah inaan la kala adkaan karin ayna khasab tahay dadku in ay intay wada hadlaan ayagoo aan kala adkayn oo ninka kale ama qofka kale hoos u fiirinaynin inay si siman ay danahooda ay uga wada hadlaan maaragtay qaran ma dhisan karaan aniga waxaan qabaa example baan qaadanaa ani moogtay dadka Soomaalida dad qalbi xun ma haya waxaad hadda fiirinaysaa Soomaalidu ma heshiin oo ma kala adkaan oo maxkamadaha imaadeen 6 bilood bayd ani waan tagay 6 bilood baa dalka la joogay dalka maamulayeen dadka Soomaalidu waxay aamineen maxkamadahaas meesha imaadeen waxa ay sheegayaan iyo waxa ay sameynayaan inay daacad ka yihiin xamar ani waxaan xusuustaa soon baan tagay waxaan ka afuray stadiumka meesha la dhigi jiray 3 saac markay tahay taxan soo raacay waagi hore markaa tagto baabuur technica oo dad la socdaan oo iyaga lacag la siinaa oo baabuurka lacag la siin oo meel walba checkpoint uu jiro waxa way halkaas aan ka soo tagay waxaan deganaa lambar 4 oo waliba aan ka soo wareegay kor jidka Sodonka oo aan Digfeer soo maray oo aan kor kaga imaaday lambar 4 baan soo maray waxba ma jirin marka waxa way dadka Soomaalida marka ay arkaan tilaabada la qaadayo in daacad laga yahay waxa weeyaan way qaadan ayaga oo aan
dhihin ma aanan heshiin iyo waan kala adkaanay iyo maanaan kala adkaan midna example-ka labaad oo aan rabo inaan meeshan ka sheego waxaa waaye maxamed siyaad soomaaliya markuu ciidamadu ay la wareegeen ilaa iyo 76 dadka Soomaaliyeed waxay u aamineen dawladda jirta in ay tahay dawlad waxa ay sheegaysaa daacad ka qofkii dambi galo oo wax dilayso nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn keenaysa moogta markii dambe taladu faraha ka baxdo laakiin halka waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed dad dhib badan maaragtay inuu ahayn oo uu yahay dad nabadeed sida ummadda Ilaahay oo dhan nabadda u rabto marka leegada la sameeyay oo leegadu ay dhalatay dagaalo sokeeyo fara badan baa dhaceen magarad waqooyi ka dhacay koonfurtu ka dhacay Soomaaliya meel kasto ka dhacay leega imaatay qabiilka waa laga tagay qaran Soomaaliyeed baa lagu dhisay 3 nin oo aan dhaqaale haysan oo aan qoryaha 13 nin dhaqaale haysan baa dadka Soomaaliyeed ururiyeen wixii gadaalaha ka halaabana laakiin dadka Soomaaliyeed oo ma baahno inay kala adkaadaan magarad waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan arkaan dad ay ku kalsoonaan karaan oo aragti iyo fikir ay qaadan karaan la yimaado marka ani waxa waaye jawaabta su'aashaadaas waxaan qabaa waa suuragal waliba waxaan qabaa in bisaylkeedii uu jira hadda maxaa nin walba xanuunku uu taabtay moogta tan oo qabiilka iyo aad ka sheekeynaysa maaragtay iyo qabyaaladda hadda waxa waaye haddii anaga aan dhahno qaran Soomaaliyeed baa la raadinaa qabiilka oo familiga lama dagaali kartid aabba tahay caruur baad leedahay caruurtaada waa inaad gacan siiso waa inaad wax barto adi aabbaha waa inaad gacan siiso dhinaca positive-ka oo uu qoysku ka leeyahay waa la haysanaa laakiin qabiil siyaasaysan Soomaali mana ku haboona mana la qaadanayo basically waxa loo baahan yahay in la dagaalo laakiin hadda ma dhihi kartid qabyaaladda waa okay waa la dagaalaa laakiin qoys iyo reer marka laga hadlayo waxa jira halkaan aad joogtaan welfare baa la qaataa annaga welfare ma bixin karo dadkeena gaajaysan oo aan shaqo haysanin ma siin karo dadku ayaga isku nool marka waxa positive-ka oo bulshadeenu ay ku tahay positive waan haysanaynaa laakiin waxa loo baahan yahay midda annaga na duminayso oo qabyaaladda inaan ka tagno waxaan uga tagi karnana waa in magacaan oo qarannimada iyo magaca Soomaaliga aadan hoos uga degin moogta aadan hoos uga degin aad baad mahadsan tahay professor waxaan ninka odayga oo muddo gacantiisu taagnayd bal u soo dhiibay safka hore fadhiya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وسلامين يهي بروفيسوركو رنتي وأنا كم محسن يهي 10 كان قيمة قالك وهالكن إنه كاني رجي سوق بن قابينا يجنا وسلامنا وأنا مهد علينا بروفيسور سؤاله روان قبيل لكن ولا جسوا جود بي تان قدام بيسا يعني إن يرجع على الله وحوجا يناد بلير تفاصيل كوير درتو هيل وحود علي سب إيه سمارة بل هيل أرتو يسوق حقو كسو فرعمي إن سب إيه سمارة مركين سوق كابنو كلانس كواوين مدول بردين عراعيو مع قرادي إنه عرتاء وان كل جوجي 0.5 وحليلي حق معها حل بعد مركز المودي حل لكن حق ما يهين قف بري مجرو مركز لكن وجديدين ونقولني وكل جوجي لكن وحوي حل بعد مركز المودي وأنا لقوا جد بي مدة قبيلك إن لقى كافتومو أو كل قبا أو قرن لدسو تضمن بقى كم ما هاي وحالي قبيل يقرن اسمه بقولي كران قرن إن السومالي دسوتو وكو خصبان تاعي قبيل كده هو هاي سكاي سوتو هوس هاي سوتو لكن إنه يسوي كهر مرقر النمطي وفالحمو وين وكورة أحسن هاي شيخنا وحلينا ذاتي اللي هي يسكو قرطة وإنه كده إنه هو أنت إنه أسكع إسكدنا على رأي قبيل كيسور وريه وذا جيله أنا قالوا هالكن شو قال لي سوي ديا كهود وحكود له لأن مكتيسي صادر ويل البطن بعد له ضايع
adigu si kasta uga gelgelo waa lagu khasbaya marka dambe inaad lacagtii wuxuun dirto oo nimankii aad aamusiiso halkaa kasoo qaylinayay calaa kulli xaal su-aasha tan su-aal hore halkii hore iga raacday faraacinada ama masaarida badhe masar badhe relation kale aan ahayn kaa ganacsiga ee qadiimiga ahaa ma jira waayo afkeenna erayo badan oo ilaa 200 oo eray hadda gaadha baa iyana faraacino ah oo maaragtay lasoo research badan lagu sameeyey sida aqal guri qorax dayax maxay tahay balideena magacyadoodii qaar badan oo ka mid ah marka mudan waad mahadsantahay waxaan ugu yar waxaan jeclahay inaad soo gaabiso waa soo gaabiyey taana wax yar maaragtay bal yaro tafaasiil dad ku noqon karto waana waqti dambe raalli ahaada su'aali waan soo gaabiyey intaasan kaga baxayo assalaamu calaykum waraxmatullahi ma israacinaa si waa israacin karaya waxaa ninkaa odaygaa khamiiska wata u dhiiban waxaan u malaynayaa khamiiska inaad statement usoo qaadato inaan carab kasoo jeedno بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مقعيق وحالي هذا مختار شيخ شوتة مختار سؤال شيء إذا مركب وحواي بروفيسوري قبيل وحاجره انتنا كجري هل مقعوته for example قبيل الذي أذيك أشياء سكلا أشراف توكله البنادر كي كجران باش الشنات أم هاد أنا رهنا دقلي مرفنا وكجران انت أصلا كسوكو بيا وبالله التوفيق سيكون عاد ما دام قدام السلام عليكم وأنا وكسون نقولنا واحد سدول تاجي هذا الصومالي بهذه مكان قبيلك واحد سؤال شيء ذو حوين بوجي هذا كون نقضه قبيلك مريحان وحا هجامين يدوب كوجا مجلس هذا سوق هذا إنه ميوت تفسيريا إنه كدوية هاي أسر أهان إنه كدوية هاي جرية هذا سوق هذا نكى قدوميني مريحان كوحا قدوميني وحو أها مجلسو هرابو goita oo af tigreeyo ka dhigan chief oo sultaan ka dhigan goita Todros Adam ninkaas gudoominaya Mareykanka girigana waxa gudoominayay matan Usman Khalid marka magac arood goorba la sameeyay mar haddii saa kala duwan yihiin taasaan su'aasha ka baxay insha Allah سؤال صدق وين صدق هذا كجواب بالك هذه وكذا يعني هرتا دان كورة مرة سؤال شيء دكتور كوحاوي سب يو هذا إرجع السب لبا معنوله وقوي مركز شوكتان يدينك السب وحكى له يا كونفورت مركز اللي شوكان السبت وديجلي يمرفله وقوي مركز اللي شوكان وحاوي بيلهاس oo la iska yare riixo waayo moogtay laakiin wax kasta ha noqdaano sababtoo hadday rabto s yar iyo s weyn ha yeelato Soomaalahana ama Soomaali ha noqdo ama Soomaalaha noqdo laakiin hiil yaa dhalay hiil Soomaalida marka sheekadooda iyo say u hadlaan aad fiiriso hiiliye ilaah baa moogtay probable inuuna nin ahayn moogtay probable inay dhici karto inuu ilaahay labadan abuuray oo labadan laga abuurmay moogtay marka waxa waaye sheekooyinkeenan anaga way iska yar qoto dheer yihiin fasiraadoodu way iska badan kartaa marka taas halkaas aan uga baxaa faraacinada haday markii aan ka hadlaynay dhinaca oo maaragtay aragtida oo diiniga oo umaduhu ay u kala baxaan masaarida iyo anaga Misraayim waa Masar Kuush waxaan dhahnay annaga Kuush iyo Misraayim waa isku af marka erey aad iyo aad u fara badan inkastoo dhibaatadeedu ay fara badan tahay qoraalkan oo hieroglyphiga iyo afafkii ka horeeyeen xilliga faraacinada ama ha noqdaan afkii farti cuneiformiga oo Mesopotamia ka jirtay ama afafkii kale oo gadaal ka dhasheen ama Greek hore ha noqdaano ma lahayn dhawaq moogtay wayeel ma lahayn maxaa la ii sheegeen shaqal iyo shibana waaye moogtay
marka dhibaatooyinka jira oo aan wax loo fasiri karin marka hieroglyphyada laga shaqeynayo waxaa waay hadda qorax oo kaleeto wuxuu qoraa wax qaaf u eg oo kale iyo ra oo kale wuu qoraa marka waxaa waaye adi inaad hagto waaye maaragtay fonitiga inuu wuxuu yahay inuu wuxuu yahay laakiin wax fara badan oo qoraxdaasi ka mid tahay oo kabtu ka mid tahay oo birtu ka mid tahay oo waxaa jira magacyadaas ama la kala qaato ama asal ahaanba isku meel ka soo jeedaan laakiin waxay u baahan tahay daraasaad aad iyo aad u qoto dheer bay u baahan tahay oo weliba gaar ahaan dhinaca cilmi afeedka ku saabsan marka taana waxaan u malaynaa researchiga dambe iyo dhalinyarada dambe oo ayadana maaragtay rabaan inay baxthi sameeyaan anaga waa daalay kuwaas baa loo dayanaa maaragtay inay raadshaan su-aasha mukhtaar haddaay waxaan sheegay qabaa'il rogrogmada moogta waxaa kaloo kuu sheegaa 4.5 sharci ma aha moogta qorshaheedana wuxuu ahaa in carta lagaga tago carta in lagaga tago laakiin aanu soo noqon soo ma garan wuu soo noqday waxaana rajaynaynaa haddii annaga aan soomaalinimo doonno oo aan gaadhno heer axsaab iyo afkaar iyo dad isku aragti iyo isku fakera dadku uu isu raacraaco in aragtiyada hadda aan ka hadlayno iyo waxyaabaha la tirsanayo lagu kala tegi karo oo maaragtay aanay jiri doonin dee maaragtay qofku magacu doonay ha yeesho haddii uu koox uu la fakar yahay uu jiro xisbi ay wadaagaan xisbigaasaa dhisan saasuu ku soo baxaa laakiin cid justifikaaraynayso inay 4.5 ay ahayd sax oo qola xagga jirto xaggana ay jirto qabaa'il fara badan oo ani waxaan xusuustaa imaadeen oo soo dacwoodeen oo qabiilooyinka ay wax la qaybsanayeen ay diideen oo iyagu doorteen in ay ku galaan beeshaan shanaad qaabka nooca mararka qaarkood markaad eegtana hadda qabaa'ilka sheeganaya in iyagu waaweyn yihiin baa dhibka ugu weyni ka jiraya hadda markaad fiiriso qaabka wax loo qaybsado beeshaas shanaad dhibaatadoodu way yartahay aad bay u yartahay oo iyagu ay isaystaan oo maaragtay maxaa ila iyaga laftigooda taxadarayo kuwa kale waxay dhihi karaan waxba isku kaana xidha oo marna lama kala tegi karo halkan waxaa ku jirta waa la isxaq dhowraa soo ma garan weliba waa mixed oo aad iyo aad u fiican oo dadkaad sheegaysa ay ku jiraan oo kuwa sheeganaya inay iyagu dad sarsareeyay jiraan ay ku jiraan marka waxaa waaye waxaan qabaa inay waxay ahayd carta kadib barnaamijkaani uuna sii socon wuu sii socday haddana ilaahay aan ka barina aanan u shaqayno in 4.5 aanay sii soconin oo lagu kala tago oo dadka Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan dad uun fakar wadaaga moogta ardayga waxaa waaye walaalow magaca Soomaaliga futuuxul xabash uu sheegaa Soomaali inay jirto qabaa'ilka Soomaaliga oo hadday aan tirinayna uu tirinaa ninka odayga u maaragtay qabiilka Mareexaan wuxuu leeyahay waxaa la dhahaa Geita Todoros moogta Theodore marka magaca marka aad fiiriso Theodore waa magac oo masiixi oo weliba orthodox oo copti waaye moogta oo magacyada iyo dadka diinta maaragtay Ethiopia haysta magacyada ay la baxaan marka laakiin muhiimadda waxaa waaye ninkaas waxaa laga yaabaa asaga oo noqon karo inuu yahay hiraabuga wuxuu dhalay Axmed moogta oo haddana dhalay marka waxaa laga yaabaa in dadku inay reerku diinta u babadasho in aanay xilligaa dhib aanay ahayn moogta oo daris wanaagu iska jiro oo maaragtay conflictiga hadda inaga inoo taaloo kale aanay jirin laakiin sida aad u sheegayso dee maaragtay oo taas waa midda kaleeto waxaa marka la abtirsanayo qabaa'ilka meeshan ku jira qabaa'il badan baa affiliated ku oo sheegaya inay bartiraa ku jira daarood waaye iyo barraa ku jira waa daarood Mareexaan baa ku jira waa daarood maxaa la ii sheeg marka waxaa looga hadlayaa unug hoose yaa looga hadlaa laakiin loogama hadlaayo inay daaroodka ka da'weynaayeen
ahaan ugama u hadlayo laakiin qabiilooyinkii sida ay dagaalka u galeen buu u sheegaa hadda fiiri qabaa'il waxaa jira hadda Soomaaliya ah qabaa'il waaweyn oo loo haysta inay qabiilooyin fara badan oo waaweyn yihiin xilligaa ma jirin moogta gadaal bay ka dhasheen marka dynamismkaas caadiga ah midha isbahaysiyadan baa dhasheen marka isbahaysiyaalka hore kuwaas ahaade laakiin magacyadan meesha uu magacyadu ku dhamaado hadayaan sheegnay waa daarood waa hawiye waa dir soo ma garan marka wixii ka hooseeyo ayaga hoos ka gala waxa waaye dadka Soomaalida ama hala warsado ama abtiradooda hala warsado meelahaas buu ku dhamaanaa laakiin saad u sheegayso waxa waaye ninka odayga oo reerkaas madaxda u ahaa magaciisu wuxuu ahaa magac oo masiixi ah aad baad mahadsan aadan su'aal maad qabin dad ilowday ninka ka dambeeyo dhiifatad wali xusuusan tahayna ku dhax ma wali waan xusuustaa professor ma dhici kartaa hadda maanta waxaad ka hadashay xulufada ama isbahaysiga ay dadku qaarkood isku raacaan ama qabiilada qaarkood isku raacaan ma weyba yihiin ba isku raacaan haddii ma la samayn karaa xulufadaas ama isbahaysigaas Soomaali ma isku soo raaci kartaa oo ma looga bixi karaa baad u maanaysaa 4.5 iyadana cidna lagu dulmeeyay علشان قبيل عصب la abuuri karaa farsamo cusub oo kale marka de maskaxad ku keenteen 4.5 ba ma lagu keeni karaa ma lagu eegi karaa balna isbahaysi kale oo si kale isu qaadan karaan la isu raacsiyo والله دايتو waxaan maray inaan fasiray moogta waxa way hadaan isugu nimaadno annaga magac Soomaali ah waa inay axzaab dhalato waa in fakar la isku raaco adiga oo reer quraca waxaad aadaysaa reer aydan waxba wadaagin oo adi fakar uu idan ka dhaxeeyo waad isku bahoobi kartaan fakar ana waxaan aaminsanahay inay dhici karto in dadka Soomaalida intay ka tagaan qabiilka oo ay magaca qarannimada qaataan inay fakarkooda iyo jiritaankooda iyo waxa ay rabaan uu ku saleysnaado fakar uu ku saleysnaado moogta waa in la diyaariyo may diyaaris buu u baahan yahay haddii dad Syria ay yimaadaanna example waxaan u qaadanay maxkamadihii moogta waxaan example u qaadanay 6 sano oo Maxamed Siyaade hore waxaan example u qaadanay leegadii waxa way dadka Soomaalida dad ka toosi og oo waxa fiican ka qaadan og ma jiraan yaa bismillaahir rahmaanir rahiim professorka waxa weydiin lahaa markii aad bilaabaysay qaybta labaad waxa tiri definition anu ma doonayo inaan ereyada ka bixiyo annaguna waxaan doonaynaa malaha diraasaad dadka jaamacadaha iyo waxa baaraya in ay mafaatiix helaan si ay diraasaadka u sii wadaan marka terminology maadaama cilmi baaris ay waxay tahay malaha waxa loo baahnaa inaad isla qeexdaan oo maxay ahayd wax noo cadaysid adiguna imika wixii definition waad ka timiday marka waxaan dooni lahayn ereyadan inaad qabiil iyo qaran baa la isgarab dhigaa haddii diraasad lagu sameeyo dee laba erayo qaran waa Soomaali qabiilna oo Carabi maxay ahayd mid u dhigma muu jiraa tol beel maxay ahayd diraasaad ma ku sameeyeen si diraasada maxay ahayd loo sii qodomin karo loo sii wadi karo jahwareerka waxa keenaya taariikhda waxyaalo badan baa isku maxay ummadan iskaga darsamay marka daraasada in badan baad sameeysan waxa kala cadeeysan juqraafi ahaan taariikh ahaan ummad ahaan waxyaalo badan bay diraasaadku kala cadeynayaan waxyaalo badan oo erey bixin maxay ahayd loogu noqon karo amba buugaag inaad noo sheegtid diraasaadkaaga aan ugu noqon karno oo laga sii tixraaci karo inay jirto markii ugu dambeysay qabiil mushkiladda aan ka arko anigu ila tahay wax weeyaan qabiilku maxay siduu u samaysan yahay marka la soo galo reerka iyo dadka soo gala iyo xal u doondoonaa taana waan ku qanacsanahay taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan base mushkiladdu waxay ka tahay qabiilka kale ma jirtaa tusaalooyin amba taariikh amba waxyaalaad noo soo bandhigaysay laba qabiiloo wax wada yeeshay oo si fiican isku maamulay maxay yeelin karayeen maxayna ku heshiin karayeen maxay cilmi baaris ma ku samayseen waxaan u maleynayaa horta markaan erey bixin iyo ka hadlaynay moogtahay hadda marna waxaa waaye waxaa la iftiiminaa xaaladda guud erey bixin hadda markaan ka hadlaynay qoyska markaan ka hadlaynay lafta markaan ka hadlaynay reerka markaan ka hadlaynay jilibka waxaa waaye structure-ka dadka Soomaalida uu u samaysan yahay ayaan ka hadalay
hadda ay markii aan ka hadlaynay dhinaca qabiilka iyo dadka isbahaysiga isku samaysteen markay isu yimaadaan dadka Soomaalida guud ahaan waxa ka dhaxeeya xeer marka condition cusub marka ay dad isugu imaadaan xeer hoosaad ayagu ay leeyihiin bay sameeyaan xeer ciisaha kamid ah xeerkan hadda ka sheekayno xeer ajiga kamid ah haddii la rabo detail in la galo xeer ajiga waxa uu yahay la raadinaa xeer ciisaha wuxuu yahay la raadinaa dadku markay isu yimaadeen oo ay isu tageen waxay sameysteen xeer hoosaad si fiican bay isu maamuleen way wada nool yihiin soo ma garan xeerkaas xidha asaga maareeya soo ma garan marka waxa waaye jiritaankiisi oo ibida hadda waxa waaye dadkaas Soomaalida oo isbahaysiga isugu tagay baa ka fiican kuwa qabiilka isku dilaayay moogta hadda qabaa'ilka isku dilaayay ayagii oo kala gedisan oo ogol maxaa la dhahay sheeg ogol in ay wada noolaadaan oo wax wada sameystaan wada hadal la'aan dad isuma imaan karo moogta soo garan waa associated way marka ana waxaan u maleeynaa inaan ka jawaabay markii hore structure ahaanna waxa waaye xagga definitionka markii waxa la dhex galo baa la garan karaa mar waxa waaye waa inaan ku qanacno in structure-keenu uu yahay structure oo isbahaysi ah waa koow laba waxa waaye marka isbahaysi hadduu yahay waxa waaye isbahaysiga mid ka weyn in loo guuro oo dadka Soomaalida isu keeni kara maxay la adi haddaad mid samaysato anna aan mid samaysto oo aan iska hor imaanayno isuma imaan karno aniyaadi laakiin adu waad ogolaanay mid Soomaali ah anna waan ogolaanaa mid Soomaali ah marka kan naga dhaxeeyo oo doodu ayna ka imaanayn oo dadku wada ogol yahay kaasaan aadayna maarad ka inaan aadno waayo maxay la kuwii kale oo dhan dhiiqay keeneen moogta waxaa intaa ii dheer waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Kah Express waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalahay ATM oo aan maanta wixii ka dambeeyay ku beeri doona haddii Ilaahay idmo wanaagooda iyo waxa ay u taagan yihiin qiimaha uu leeyahay aad baad walaalayaal mahadsantihiin